السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواada walaalayaal channelkeena wax walba crypto walaakin maxamed jaamac insha Allah xalqadan xalqad aad iyo aad u muhiim ah ay noqon doontaa taasoo kaga hadli doono blockchain-ka wuxuu yahay iyo qaabka uu shaqeeyo iyo waxa loo yaqaano blockchain triangle dadka badintooda advanced-ka iyo maaragtay beginners-ku aanay aqoonba oo waxa weeye step-ka ugu muhiimsan oo coin walba uu maro 20 kun ee coin aad aragtaanba triangle-ka aad aragtaan coin quraatu soo buuxiyay ma jiro triangle-kaasina wuxuu yahay insha Allah waan sharxi doonaa intayna bilaabin waxaan ugu codsan lahaa like iyo subscribe channelka noo saar haddaad nagu cusub tahay ku soo dhawaada blockchain sidanu aragnaba blockchain is a series of blocks ayuu ku leeyahay waa majmuucado blockya ah amba dhagxaantan oo kale u samaysan oo macluumaadka lagu kaydiyo taasoo la isticmaalayo maaragtay nodeska amba luqadda barnaamijyada ah ee kombiyuutarada oo networka macluumaadka lagu kaydiyo hadday ahaato transactionna lagu sameeyo shabakadda hadday ahaato smart contracts wax la yidhaahdo amba kontraakyada smartka ah ee caddaynaya maaragtay inuu hebel alaab iga iibsaday amba inaan hebel alaaban ka iibsadoo kale silsilada u dhaxaysana waa chainkuna waxa weeye silsilada u dhaxaysa ee isku xidhaysa blockii walba amba shabakadii macluumaadka lagu kaydinayay ee networka la dhigayay haddaba blockyadan iyo chainyadani maxay ka dhigan yihiin oo qaabka loo isticmaalaa ma safe ba ma secure ba muhiimadda loo sameeyo maxay tahay muhiimadda loo sameeyo waxay tahay inaan macluumaadkii la bedelin mar blocka hadday macluumaadkaasi ay galaan oo blocka kale loo gudbiyo cid haagarayn karta amba bedeli karta macluumaadka lagu kaydiyey maba jirtaba weeyaan muhiimadda asaasiga ah ee blockchain-ka loo sameeyey coinakii ugu horreeyey ee blockchain-ka ku shaqeeya ee la sameeyey waxaa ka mid ahaa bitcoin-ka kadibna waxaa ku xigay ethereum-ka kaasoo hawshii blockchain-ka uu asna sii qaaday amba marxalad kala gaadhsiiyey taasoo ay kusoo dareen maaragtay smart contracts wax la yidhaahdo amba kontaraagyada la kala saxeexdo blockchain-ka ku dhex dhisan ee aan la bedeli karin forever coinaka intooda badanna iminka qaabkaasay u shaqeeyaan triangle-kan inii sheegayey aynugu yidhi maaragtay coinanka intooda badan ma soo buuxiyaanna taana waynu eegi doonaa insha allah waxaan jecelahay sharaxaadan blockchain-ka inaad wax ka fahanteen insha allah qaybta kale aynu gudbayna waxaanad ogaataan waxa blockchain-ka la dhigo forever inaan la bedeli karin oo aan laga saari karin blockchain-ka mar hadday wax galaan oo macluumaad quraata lagu safe gareeyo forever internetka u oolayaan ilaa iyo dee maaragtay uu internet sii jiri doono dhalinyaradana waxaan kula talin lahaa course haddaad heshaan qaabka looga shaqaysto blockchain-ka barta waa aad iyo aad buu muhiim u ahaanaya mustaqbalka dhow anigu laftarkayguna insha allah waxaan ku tala jiraa inaan blockchain-ka iyo qaabka ay u shaqeeyaan iyo qaabka maaragtay looga faa'iidi karo insha allah inaan bartaanba dhowaan markaa taasina waa talo insha allah qaybtan u dambaysa waxaynu ka hadalnay bilowga xalaqada oo aan ku sheegay waa qaybta ugu muhiimsan amba saddexdan qaybood waa inaad coin walba aad doonaysid inaad maalgashatid inaad ka egtid waayo waxay kaa caawinaysaa inaad ogaatid coinkani mustaqbal ma leeyahay coinkan ma sii jiri doono mustaqbalka oo fikradan ku dul dhisan decentralized ma fulinaya coinkan oo ma sii jiraya haddaynu eegno qodobada ugu muhiimsan triangle-kan waxaynu aragnaa halka ugu sarraysa inay tahay scalable oo wixii amba coinkii maaragtay aad maal gashanaysid waa inuu ahaado coin transactionka surcaddiisu oo intaasoo kun oo xawaaladood secondkii uu fulin karo taasina waa qodob aad iyo aad u muhiima qaybta labaadna waxa weye security waa inuu ammaan ahaado ammaan sarreeyo weliba maaha ammaan ciyaara iyo qaybta saddexaad oo ah xogtii ahayd decentralized oo inay jihooyinka maaragtay wax controla inay ka xor yihiin ma fulinaya hadaynu aragno tusaale Solana laga soo qaatay transactionaday sameeyaan aad iyo aad bay u sarreeyaan securitygooduna aad iyo aad buu u wacan yahay waana decentralized inkastoo Solana la isku hayo maaragtay decentralized-keeda oo la sheegayo maaragtay xogta ugu badan amba coinaka ugu badan 50% inay haystaan dad hantilayaala taasoo areadan maaragtay ka saaraysa Solana oo sectionkeedan maaragtay uu isu bedelayo centralized san horey nagu sheegayna coin quraata oo saddexdaa wada fuliyay ma jiro ilaa imikana ma jiro 20 kun ee coin ee suuqa imika yaala coin quraata oo saddexdaa angle amba saddexdaa qodob wada fuliyay ma jiro mid walba waxbaa ka siiya ta ugu badan laba qaybood ayuun bay fuliyeen ta bitcoin-ka waa decentralized oo jihimo xukunto waana aad iyo aad buu aamin u yahay laakiin mushkiladda haysataa waxa weeye scalingkii transaction fara badan per secondkii ma aqbalayo ethereum-kuna waa sida
sidaas oo kale waa decentralized oo jiha xukuntaa ma jirto aad iyo aadna secure uu yahay oo ethereumka way adag tahay soo loo dhaco oo dadka hackeradu maaragtay aad iyo aad ay ugu adag tahay inay dhacaan ethereumka mushkiladda ayaamahan ugu dambeysay waajahaysay maaragtay ethereumka waxaa ka mid ahaa scalingka oo daqad weyn baa la saaray shabakadoodii taasoo xawaaladihii qaaligaraysay oo mushkilado maaragtay u sababtay marka waxba yaana hadalkan ugu badin markaad coin aad baadhaysid amba aad raadinaysid rangalka la soo bax waxaad eegtaa amba aad adigu qiimaysaa coinkan aan iibsanayo amba aan maal gashanayo saddexdaa qodob ma fulinayaa haddaanu fulinahayn at least waa inuu laba qodob maaragtay uu kuu fuliyaa ta saddexaadna waa inaad adigu meel dhexdhexaada keentid oo aad xukunkaaga ku xukuntid intaasan walaalaya inay haya maanta aad iyo aad baad u mahadsantihiin daawashadiina channelkana ku xidhnaada insha allah xalqada dambe waxaan ka hadlaya blockchainka iyo layerada kala duwan amba dabaqadaha uu leeyahay blockchainku taasoo insha allah aynu tusaale kusoo qaadanno coinan fara badan oo ka shaqeeya layerada oo mustaqbal wanaagsan leh insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu